nabigeena sallallahu alayhi wasallam miskiidkiisa nin baa ka sarakacay baahi buu nabiga hortiisa ku sheegtay yiri inni rajulun majhudun nin baahi ay hayso aad u baahan baan helay marti qaado markaa buu nabigu halkaan ii fariiso saxaabigu nabigu daruuri ordo reerahaygi bal wax la quuto inay yaalin iga soo ogaada sagaalkii aqal nabi maxamed uu lahaa baa la soo maray xaasaskii nabiga hal jawaab kaliya laga soo helay jawaabtaasi maxay ahayd la walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma haweeney kasta waxay soo sheegtay tiri ilaaha xaqa diinta xaqa kula soo saaray ba ku dhaaranay aqalada yada baad la cuno afka la galiyo ma yaalaan biyo la caba mooyaan sagaal aqal baad la quuto ma yaalo maxaa yaala kaliya biyo inakana maanta biladan iyo sanadadan waxaan cuni lahayn inagoo haysana umma dadkii haddana faqri ka baqayaan marba hadduu qofku faqri ka baqayn waa faqiir ugu soma الناس في خوف الفقر الناس في فقر في خوف الفقر مربى dadku haday faqri ka baqayaan waa fuqara sagaalkii guri ee nabi maxamed uu lahaa la soo maray jawaab kaliya laga soo helay jawaabtee ilaaha xaqqa kula soo saaray ba ku dhaaranay baad la cuno aqalada ma yaalan biyo la caba mooyaane markaa buu nabigu fadhiistay wuxuu warninka martida yaa ii marti qaaday buu maanta yaa ii marti qaadaya abu talha saraka oo ana marti qaadaya raac abu talha abu talha reerkiisa waxa yaala kama warqabo guriga markuu soo galay ninku dibaddu jooga gobashiiba u dhigay hal cindaki shay buu naa wax la cuno ma haysa markaa bay tiri may arurta yar cashadoodii maayna wax kala aqalka ma taalo arurta cuntadoodii wax kala aqalka ma yaalaan markaasuu ku yiri ciyaalka si uu bal u yar ciyaarsiyo seexiyo intaad iyaka ugu tala gashay ninka dayfka soo galiniye isagaan hor dhigaynaa dadna markuu soo galeen inta hor dhignay isaga inaga faynuuska inoo dami oo aqalku mugdi har noqdo labadeenuna afka dhaqaajinaynaayoo si dad wax cunaya ayaan iska dhigaynaa buu keenay isagu inta ha cunay ilaa ninka dayfka hadduu arko wixii aqalka yaalaba in isaga la hor dhigay oo dadkii reerka lahaana ay bila cunay yihiin ay bila cashay yihiin kuma dhacayda inuu cuno marka saan u raali gelinay buu yiri faynuuska dami isagana waan fadhiisin waan hor dhigi adigi aniguna wa arihi anna naakulu tus si waxaan wax cunayno afka hadda dhaqaajino ha shaqrayno ubadkii gaaja ku seexdeen saxaabiyadii gaaja ku seexatay saxaabigii gaajo ku seexday intii ubadka loogu tala galeen wuxuu hor dhigay bayfkii adiga iyo aniga iska soo qaad xilli duhurkii oo qadadii salaadii aan ka soo baxnayo xaafadii aad timidayo islaantu cuntadii ay nii kala gurtay ayaa laba oday adeeradayo oo aad filim ba kugu soo dul dhacay seel oran lahayd hotelka tagay oran ka ugu fiican waa ka lacag soo saareen leeynuguma tala geline de waa la soo sheegaaye walaal hotel maqaaxiya taga wali way furan yihiin gaar waa ka ugu fiican waa ba ka naxaynaaba dayfka waa ka naxna maanta inagu muuminkuna waxa uu hayo waxa loogu tala galay dayfka wax kula dayfka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu dayfku waxbu kulay wax hadayso saxaabigii sidii buu caahbeenka ku seexday waagi markuu bariyo gacanta soo qabtay ninkii dayfka masjiidka nabigu keenay sallallahu alayhi wasallam markaa buu nabigu yiri aba talha ila nabiga waxiga ku soo dagay moogta xalay toola qisadii guriga ka dhacday warkeedii buu nabigu hayaa يا أبا طلحة لبيك وسعديك يا رسول الله ولي بس صحابته عجيب بهايان مركي النبي يدحدو ذا أي جوغانا وحي موجنيان رق وحي موجنيان أين باهيين بقى وصل يا فرحد يا الريرين يا بشاشد بي موجنيان لكن مركي أقلدو ذا أي تقان إلهي بريان ضعف يا فقراء يا وحي موجيان يا تملق إلهي بي قعماه وصلك تعال inagana maanta ninka dhibaato yar ay ku dhacdo halkee laga akhristaa wajigiisa maxaa ku helay war xaalkaagu ma fiicna maanta arbalaaya dhacdo la soo sheegay buu kooran war muuminku balaaya ma sheegto kow wajigiisa in laga garto laga akhrista maaha yaxsabuhumul jaahilu aghniya bisababi min at-ta'affuf ba ilaahi jaahil ninka magaalada madiina ku cusub remiga
saxaabada aanan cilmi u lahayn magaalada Madiina markuu yimaado dhowrsoonida saxaabadu baahida bini aadanka ay ka dhowrsoon yihiin baahidooda ay qarsanayaan gudahooda ku qarsanayaan waxa loo maleynayaa baa Ilaahay inay yihiin niman lacag ku fadhiyo malqabeena lacag maaha waxay lacag yihiin waxay la qoslayaan lacag maaha bal way dhowrsoon yihiin oo baahida bini aadanka inay lisaanul haal iyo lisaanul qaal minna ay ku sheegtaan oo laga fahmo ay iska dhowrayaan baa Ilaahay yiri walakin nabiga waxiga u sheegay sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu yiri laqad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dayfikum al-laylata ya aba talha halayto la dayfkiina sidaad u maamuseen aad u qabateen Ilaahay baa rali ka noqdo ku farxay buu rasuulku yiri markaas quraanka ku soo degay walladina tabawwa'u ad-dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنكم هنقاجونو معناها آيات قدهان وحي نقنكو أها أنكم قاجها كسيحنو لكن ولالك يا مسلم كهايونا قاجنا قسيحن ورنالو شاء الله ينصو عليو آمين هذا ولا ليان والله القرآن كما قاعد خرجتك إيه هل كمانت إنكم أتاجنهي كالأرض والسماء يكو حنولاد ولا الكهاد انت اسمي لهين وحي لغو التربية دي لغو أبوري ودغن يدين لغا دي إن الدين تادو كامل لغو تمدون ساها إن إيمانك أغو كامل لغو تمدون ساها إن الجنة شمدون ساها نفتح لو حال لجعشة ولا الكهاد لجعلو نفتح لو حال لجعشة ولا الكهاد مسلم كان لجعلو كانوا هنقاجودو لكن ضيف كيغو هاي يدرقو أنا هندنتو ولكن هاي نولادو في غزوة يرموك صدح صحابي با يكو داوع على سوق قالوا نفتو قيق داحيسو وديك بحي عكرمة كمد هذا لي رضي الله عنه مرقاسو بيو إلى سوق قال بيا لغو قبطا إلا جالك لما هاي بيا لغو لسو أرضي مركو بيه أفكا مركا لودو ويبو مغلي كي كيشيو يسوغنا نفتو أي قيق داحيسو أنا كيسكا كي دايو نكها يقدرني كابي أهل الجارة كيف الله وقفت هذانا كينا وحوري هاي أنا وابن رون هاي كاكل الجارة كي كلا على الجارة كي كلا يديها كاكل الجارة صدق حلودي صدق نبنيك كلا بيها وقدر بداية أي نفتك وضع دعيك ومرنا أنا كبن بليني أنا هندنتو ولا الكينا هنولادو أنا هنجاجودو ولا الكيها يدرجو أنا أقول من الله شرط ما لقى يا شرط حديث كورة محوها أيا يدل ما نقاضي يا عرب كيسي عورديسا إنه معصية يدن بك إلالين وانا نقول جنة وقوب اللقاض لماذا حتى الحفظه جنة لقوب اللقاضي من تكفل لي أيا إيه كفال قادم ونبي قولي إنه بني عادك عنده وصدقا وصدقا أولا وانا نقول جنة وقوب اللقاض ثوبان بعد أنيقا ثوبان صحابيقاس مركو داديسو ويناتي سوق مقالة المدينة isagoo faraskiisa watay uu soo galo jeedalka faraska uu la dhacayo ayaa suuqa kaga dhici jiray dhexdiisa rubbama laga yaabaa suuq jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaco raqabadiisa inuu dhegtiisa kaga dhaco ma oran jirin soo sii bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaasaa lagu oran jiray yaa tawbaan saaxibu rasuulillaahi baa tahee nin da'weyn baa tahee jeedalka agteeda ku dhacay maada tidaa ilaa annaka noo dhiib markaasuu oran jiray nebi maxamed baa ballan la galay ballankii nebi aan la galay baan buuxinayaa buu oran jiray laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasal iladii abwaabuhu laa tuxjabu fallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam baahidaada ha u sheegin baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisa mar walba aan la xidhay
albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadamka haddaad barididna baryaday kugu dhacayaan bini aadamka baahi badan iyo bugtaan badanba waa la isku nacaa taasay leeyihin bini aadan haddaad tidhaahdid keen oo ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxaa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino